xaflad lagu daafurayay saamiyada shirkadda isgaarsiinta Somtel ee gobolada Bari Sanaag iyo Gaardafo ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxaana xafladda daafurka ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Puntland ganacsato ismada dhaqanka haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn waxa xafladda daafuray duqa degmada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil iyo maareeyaha guud ee shirkadda Somtel Puntland Maxamed Muuse Faarax Somtel waa shirkad ballaaran sida laga soo sheekeeyay oo baaxad leh oo geeyiga Soomaaliya oo dhan joogta sida la sheegayna ku baahsan wadamo badan oo adduunka ka mid ah waan ku hambalyeynaa waan ku bogaadinaynaa shaqada baaxadda leh shacabka waxay u qabataa adeeg fiican waxayna ka qaadaa khidmadu dib ayay ugu soo noqotaa shacabka sanadkan oo hadda aan joogno ayaa la gaaray xilligii shirkadda la wada wadaagi lahaa waxaan isleenahay annaga dhex joogna waa xilligii laga wada faa'iideysan lahaa faa'iidada shirkaddu ay u leedahay mahadooda ilaahay baa gudi kara guulaha aanu gaaray iyo waxyaabaha aanu hadda ku naaloonayna runtii tiimkaas iyo dadweynaha reer Puntland oo gacan siiyay ayaan ku soo gaarnay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinka mahad celinayaa wanaagga iyo sharafta waxaan idin leenahay shirkaddii ka mid noqda sidii markii horeba aad wax uga iibsanayseen oo customer ugu ahaydeen oo macmiil ugu ahaydeen nala yeesha inta kadibna waxa hadalka isaga dhameeyay gudoomiyaha rugta ganacsiga Puntland iyo qaar ka mid ah isimadii dhaqanka ee madasha ka soo qayb galay iyagoo dhamaantood si weyn u bogaadiyay shirkadda Somtel dhamaanteen inaan ka soo qayb galno xafladda daafurka saamisiinta bulshada gobolada Gaardafo Bari iyo Sanaag ee maanta ka dhacaysa howlkan waan uga mahad celinaynaa shirkadda Somtel dadaalkaas ay samaysay aad baan u faraxsanahay barnaamijkan taabshil group oo Somtel ay soo bandhigeen oo shirka khaasatan aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkaas taariikhna waan ognahay oo arrimaha qaarkood waxay la soo maray dib burburkii la jiray Somtel qaybaha ka qaadatay maslaxadda iyo muxuu ahaayay wadanka horumarkiisa waba la sugay waxa la rahaa warqadar ba ka qayb galon doona hadee ma garatay marka taas hadda in la xisaabtano waa loo baahan yahay xisaabta lagu darataa nafteeda yaana ku sii dheeraan waxa leenahay marka ku soo dhawaada guuleysta hadda anaga dahab shil baa maaragtay qaadi weyna maaragtay maxaa la yidhahdaa faa'iidadeeda hadda idinku timaadeen oo weliba naga qayb geliseen haddii aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay ugu dambayna waxaa madasha soo xiray gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Yuusuf Maxamed Abwaan waxaan rabaa inaan runtii aad ugu mahad celiyo shirkadda Somtel sida maayirku sheegay aad bay uga qayb qaadataa shaqo fiican bay qabataa runtii aad baan u bogaadinayaa waana rajaynayaa insha Allah inay ka qayb qaadan doonaan haddana waxaa soo dhow ramadaantii iyo ilaahay waa kore dhibaatooyinka koronada ku hayana waa la socotaan hal doorkeen ay u geeriyoonayaan maalin walba waxa socota oxygentii oo shaqo fiican laga wado waxaan rajaynayaa inay ka qayb qaadan doonto Somtel sidii horeba uga qayb qaadatay Axmed Saciid Cabdirasaaq Dhagaliba Home Cable TV magaalada Boosaaso hadda waan jimicsadaa caafimaadka charger ma haysaa xaajo tiyarad iskuulkii maad geysay hay charger ma haysaa charger casuumadii baan joogaa casuumadii sug halo charger ma haysaan wanniyo maxaa kaa qaldan maanta oo dhan telefoon baad ku hadlaysaa chargerna waadna weydiinaysaa aniga ha ila yaabina waxaan isticmaalaa adeega muraad ee shirkadda Somtel oo bishii oo dhan aan ku hadlo $3 oo kaliya
waxaad isticmaali kartaa adeega muraad ee Samtel oo aad ku heli karto bisha oo dhan $3 oo kaliya hadal oo hadaalin